السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa daalacan media daawadayaal meel kasoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. kusoo dhawaada daalacan media oo aan idinku soo bandhigi doono warar warbixino dhacdooyin sheekooyin iyo wacdaraha kale ee la yaabka caalamka. fadlan daawade saar subscribe share iyo like ka mid noqo macaamiisha daalacan media. mahadsanid daawadayaal markale kulan wanaagsan. xubinteen waxaynu ku soo qaadanay maamulka gobolka Banaadir oo maanta daah rugay mashruuca Canshuur-Ururinta ee degmooyinka gobolka Banaadir. سواد حركة لوجو جري مشروع Canshuur-Ururinta ديجيتالكا ayaa waxa maanta si rasmi ah looga furay magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Filish oo ka leh munaasabadaasi waxa uu sheegay mashruuca canshuurta nidaamsan isla markaana lacagaha laga ururiyo dadweynaha ku nool gobolka Banaadir waxa lagu qaban doono danaha bulshada. waxa intaas ku daray in mashruucan oo ah nooc cusub oo digital ah uu noqon doonin sidii mashruucyada hore ee isbarbar ordi jiray. oo baaqi dadweynaha degan degmooyinka gobolka Banaadir inay gacan ka geystaan Canshuur-Ururinta si loogu kaaftoomo taageerada shay'aha ee hore loogu tiirsanaa. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxa khudbadii uu halkaas ka jeediyay kamid ahaa bulshada Muqdisho aragtiyooyinkeeda aan soo ururinay waxay tilmaamayaan rabitaan ah in Muqdisho ay noqoto magaalo caasimad ah isla markaana state ama dowlad goboleed ah. aragtidaas ayaan si duuduuban ugu soo gudbiyay kelmadeedii. wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum.